soo qaadanaynaa wararkii soo kordhay tan iyo intaynu kala maqnayn. haddaba waxaynu ku bilaabaynaa warbixin dad badan ay isweydiinayeen oo xataa qaar adinkeedii ka mid ah dadka nagu xiran ay noo soo qorayeen fariimo ay lahaayeen aaway diyaaradihii dagaalka iiraan ay lahayd. iiraan dee jabhad ma ahayn, dowladdu weyn oo gobolka dowladaha ugu waaweyn ka miday ahayd, diyaarado tiro badanay lahayd. aaway diyaaradahoodii dagaalka xaggee aadeen, xaggee geys? sida marka dad badan ay isu weydiinayeen ayaa laftirkoodu maraykanka iyo israa'iiliyiintu isu weydiinayeen aawa diyaaradihii iiraan. diyaaradaha iiraan tactic kay sameeyeen diyaaradaha hawada ku jira inay ka sarreeyaan. macnaha maraykanka iyo israa'iil waxay isticmaalayeen diyaarado technologikoodu sarreeyo, marka diyaaradahooduna muddo ayaa cunaqabatayn saarnayd, marka kama hortegi karin diyaaradahaas. inkastoo dagaalku intuu socday qaar ka mida diyaaradaha iiraan la sheegay inay duqaymo ka fuliyeen qaybo ka mida gobolka oo saldhigyada maraykanka ay weerarayeen. laakiin hadda xog ayaa soo baxday laleeyahay diyaaradahaas waa la qaaday, waxay geysatay iiraan dalka bakistan. saldhig weyn oo ciidamada cirka bakistan ay leeyihiin ayaa 100 diyaaradood ku dhow la geystayba, meeshaa la geystay. xogtii marka hadda waxaa soo qufay warbaahintii maraykanka. waxay leeyihiin iiraan diyaaradeeda bakistan ahaysa waxba lagama burburinin. wax diyaarada oo iiraan ay leedahay oo la taabtay maba jiraan. hadduu dagaalka joogsadana waxooda waa soo ceshanayeen. nimankan dee bakistan iyo iiraan xuduudda ay leeyihiin waa isku dhegan yihiin, laba wadano isku dhegan waayo. halkaanay usoo duulayan way soo galayaan, xataa waddan kale ma soo kormarayaan, haddana waa duulayan xaggaasay aadayan. marka maraykanka waxay yidhahdeen bakistaankan waana farsameeyeen. bakistaanna marka waray soo saartay maanta ay leedahay waxaasu wax ka jira ma jiraan. xilligii dagaalka socday annagu wax diyaaradaha oo ay iiraan noo kaysata male. hay diyaaradahan maxaa waaye marka meesha yaalla? waxay yidhahdeen xabad joojintii markii lagu heshiiyey kadib qofku dee waa xor, markaasay noo kaysadeen. marka sheeko yaable ayaa halkaa ka dhacday. haddaba markaan idintusoo wararkii ugu dambeeyey telefishinka aljaziira ayaa goordhow qoray wasaaradda arrimaha dibadda ee bakistan ayaa diiday oo ka hor timid warbixin ay qortay CBS News, waxaana la sheegay inay ku saabsan tahay diyaaradaha iiraan. haddaba bakistaaniyiintu waxay diideen warbixinta lagu daabacay CBS News oo maraykanka laga leeyahay. waxay sheegtay warbixinta in diyaaradaha iiraan ay joogaan saldhig ciidanka cirka bakistan ay leeyihiin oo la yidhaahdo nuur khan. haddaba wararkan ayaa waxa ay muujinayaan in xaaladda wadahadaladii bakistan iminka ay mugdi gelinayaan sida ay warbixinta maraykanku ay sheegayso. laakiin bakistaaniyiintu waxay sheegeen diyaaradaha halkan yaalla ee bakistan hadda aad ku arkaysaan waxay soo gaareen waqtigii xabad joojinta lagu heshiiyey kadib ay soo gaareen. ma ujeedaa? marka meeshan farsamooyin badanaa jira. bakistan la keensaday hadhowna waa la ceshanaya. maxaa lagaaga burburinaada diyaaradahaaga? maxaa diyaaradahaaga loo baabi'inayaa? waa la qaxiyey, halkaasaa la geeyey. bakistan maayadaa dagaal ku jirta, halkaasay u yaalaan. maraykan iyo israa'iil iyo halkan ha soo weeraraan. markuu dagaalka dhammaadana waxooda waa ceshanayaan. waa farsamo la yaab leh ayaa halkaa marka ka soo baxdaa la leeyahay. qodobka kale ee barnaamijkaaynu kusoo qaadanayno, iiraan waxay fasaxday 8 markab oo kuwa xamuulka ah oo hormus maray saacadihii lasoo dhaafay. 5 way ka gudbeen oo dhankaa iyo adduunka kale aadeen.
saddexna dhanka khaliijka soo aadeen macnaha dowladihii khaliijka xaggooda soo aadeen marka sidaasay u qaybsamayeen leeyahay haddaba warbixinta waxaa qortay goordhow Al-Jazeera waxaa leeyahay bayaan ay soo saareen hay-adaha ka shaqeeya dhinaca safarada maraakiibta caalamka ayaa waxay sheegeen in 8 markab ay ka gudbeen marinbiyoodka Hormuz shalay oo isniin ahayd waxaana la sheegay in shirkadaha 8 markab iskale 5 ka mid ah ay ka gudbiyeen iyadoo 3 ka midna dhanka khaliijka ay soo aadeen oo markaa halka ay soo galeen marka Hormuz iyaduna Iran waxay kala tuuranaysaa xisaabaadkeeda meel u saaran nin walba waa idin sheegay markii horeba waxa loo soo diraa email wixii soo buuxinaya wixii xisaaba khidmad laga rabo tuuraya qolooyinka cadawga ku Iran haduusan ku jirin waa yalla soco alle halkaas uu ka soconaya marka halkaas American marka beeshaada iska fadhi meeshan xisaab badan socota marka hawshaas halkaas maray qodob kale oo muhiim ah jira oo aad u xiiso badan oo la leeyahay telefoonadii dadka Israa'iiliyiinta waa loo soo daatay fariimo aadan garanayn meel ka yimaadeen asaas ugu daadanay hatta kuwii Netanyahu iyo madaxdii iyo kulli teleefoonadoodii waa la galaya waxba laga dhaxarkay macnaha shirkadii la soo jabsado la soo fariinaas ka soo dhacay fariintu marka maxay tahay fariintu waxay ka timid Iran waxaan nahay Iran haddaad joogi weysaan oo gabgabta meelaha ka wadaan joojin weysaan habeen iyadoo ay tahay ayaan cirka qorax idinkaga daaraynaa gantaaliya dib u bilaabaynaa waay macnaha habeennimo ayaa cirka iftiinaya waay iftiin ka baxay dayaxa arki doontaan oo iyadoo mugdi ay tahay ayaa dayax cirka ka daarmi doona macnaha waxa waaye hadallo sarbeeba oo muujinaya gantaalihii ayaanu dib isoo celinaynaa haddaad joojin weysaan waxa aa wadaan haddaba markaan idin tuso wararkii ugu dambeeyay sheekada laga qoray warbaahinta Israa'iil ayaa saakay tabinaysa fariimo ka yimid dhanka Iran inay soo gaareen telefoonada dadka Israa'iiliyiinta ah kuwaas oo ugu hanjabaya in sawaariiqdii ay soo noqon doonaan موجودة صواريخ دي صور قريش هودا ساسا كدغينا قرح ايان هبين مارت يدو هبين اي تا عرك قرح كاركي دونتار اللي قرح هذا مركب maxay tahay waa gantaalo joogto culus ay maan doon markan nimankii saasi u jareeyeen sidee ku soo dhax galeen telefoonkii madaxda teleefoonadoodii kuwii shacabkii sidee lagu soo galay ma jirto meeshan waa la soo hanjabayaa ilaa meesha ugu dambaysa la isla tagayaa waaye qodobka isaguna wararka cusub ayuu ka mid ah qodobka kale ee soo kordhay barnaamijka waxa ka mid ah Israa'iil waxay leedahay xalan u raadinayna saan xal maaha diyaaradaha droonka ee Xisbullah nafteeno keeneen askartii waa naga laayeen taangiyadii waa naga baabiyeen marka hadda waxaan soo helnay khidad cusub oo ku saabsan qaabka dagaalka Ukraine iyo Ruushka sida Ukrainiyiintu ay isticmaalaan fiilooyin meel lagu xarayo iyo shabaqyo loo dhigayo diyaaradda iyo waxa soo kale aan sameeynayna haddaan ku guureysanayno haddii kale oo arkayna haddaba telefishinka Al-Jazeera ayaa goordhow qoray wuxuu leeyahay Israa'iil waxay adeegsan doontaa hanaan cusub oo looga hortago gantaalaha diyaaradaha droonka ee Xisbullah ka imaanaya idaacadda ciidanka Israa'iil waxay sheegtay in hanaankan cusub oo markaa looga hortagayo diyaaradaha drooniska uu ka yimid dhanka dagaalka Ruushka iyo Ukraine kaasoo markaa xal u heli doona sida ay aaminsan yihiin khubarada diyaaradaha droonka ay dhibaatada u keenay Israa'iiliyiinta haddaba qaybtan waxaynu ku faaqidaynaa goordhow waxaa war soo saaray wasiirka arrimaha dibadda ahna ra'iisul wasaaraha dalka Ciraaq wuxuuna sheegay inay kulanti wanaagsan asxaabay meel kastoo naga daawanaysaan waxaynu maraynaa qaybihii ugu dambeeyay barnaamijkeena ugu horeeya maanta oo talaadaan idin soo gudbanayno haddaba qaybtan waxaynu ku soo qaadanaa alaaba wararkii ugu waaweynaa ee soo kordhay intaanu barnaamijka ku jirnay haddaba ra'iisul wasaaraha ahna wasiirka arrimaha dibadda ee dalka Qatar waxa uu sheegay dawladdiisu in ay taageerayso dadaalada Pakistan ay wado
oo ku saabsan xal u helidda xiisadda colaadeed ee ka jirta gobolka bariga dhexe iyo sidii loo furi lahaa arrinta ku saabsan Hormuz. arrinkanna marka waxa uu yimid